laakiin se haddii xataa iyada laftirkeedu ay samayso oo iyadu saa isku soo qaawiso oo muuqaalkii lagaa duubto dee iyagu waa dad gaala wax sumcadoodii iyo magaraysa sumcada ay marka hore lahaayeen iyo sharaf ay lahaayeen ma jirto oo meel dee kaga dhacaysa marka videogii dee waa live saa aad usoo gasho ee lagula sheekaysto ee magaraysa waxyaabaha qaawan ayaa lagaa duubaya shaashada ayaa laga duubaya mobilka waxaa welibana lagaa codsanaya inaad adiguna sidoo kale samayso xubnahaaga tusto oo caynkaas oo kale ayaa lagu odhanaya welibana waxaa shakilo ah in dad fara badan ay ku dhacayaan arrintaas oy tusayaan oy isqaawinayaan oy waxyaabaha samaynayaan muuqaalkii marka lagaa duubto waxba yaan hadal ku daalinay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا أصحابتا قيمها بدن ملك استوات جوكتان وولالكين مصطفى عبد الرزاق أويد الله مالي وناكسن صاحبيا maanta arrintan horteena taala waa arrin aad u xasaasiya run ahaantii oo ay qof walba waajib ku tahay inuu ogaado kana taxadiro ugana digo qof kasta oo u dhow ama ay saaxiib yihiin ama ay qaraabo yihiin ama ay family yihiin oo aad u jecel yahay naftiisana uu ka taxadiro 2019 bishii November ayay ahayd markii iigu horeysay aan anigu maqlo arrintan wili aanu saaxiib nahay oo aanu isku dhownahay ay arintani markii ugu horeysay ku dhacday waxa la soo xiriiday gabadh loo yaqaano Nicholas Helbert taas oo kala soo xiriiday barta social media ee Facebook Messenger-ka ay in muddo ah ka wada sheekaysanayeen markay gabadhii in muddo ah wada sheekaysanayeen baa waxay la wadaagtay arrin aad aan ula yaabnay idinkuna aad la yaabi doontaan horta gabadhani waxay u sheegtay oo markii hore ku haasaawinaysay inay jeceshahay inay magaranaysaay ay ka daashay nin hore ama dad hore oo ay soo fureen dabadeedna ay doonayso wiil Afrika jooga oo caynkaasa oo ay wada sheekaystaan oo ay guur iyo magaranaysa waxaas dhex maraan laakiin qiso ayaa ku dhex duuganay gabadhii waxay la wadaagtay arrintan waxay u sheegtay inay u shaqeyso bangi islaamik ah kaas oo ku yaala Ingiriiska magaciisana la yiraahdo Al Rayyan Bank bangiga waxay u sheegtay inay taalo lacag 15 milyan iyo 500 oo kun oo dollar ah waxay ku tiri nin doctor ahaa oo Benchek la yiraahdo oo lagu dilay Liibiya 2018 bishii February 6deedii baa lacagtan dhigtay cid loo ogeyd ma jirto dadka bangiga uun baa og in lacagtaasi taalo cid soo sheegatay ma jirto bangiguna muddo qabtaayo markii muddadaasi dhamaato isaga lacagtaasi la wareega hadii ay cidi soo sheegan weydo sida la ajligeed muddadii waxa ka hadhay muddo bil ah ayaa ka hadhay dheydkeedii waa dhow yahay ay bangigu kula wareegay salaajligeed saaxiibkayo fursadan waa fursad qaaliya imana soo mari doonto adigana kuma soo mari doonto aynu ka wada faa'iideysano lacagta adiga soo sheeganayo bal dhageysta lacagtan adigu soo sheego waynu isku guursan doonaa adigu waxaad qaadan doontaa boqolkiiba aan waxaan qaadan doonaa boqolkiiba 60 bay tiri adiguna waxaad qaadan doontaa boqolkiiba 30 boqolkiiba 10 ka soo hadhayna waxay noqon doonaan kharashaad iyo waxyaabo caynkaas adigu waa si waxa la doonayaa looga dhaadhiciyo waxan ujeedada ka dambaysa arrinta markii la soo wadaagtay ayuu iimid uu ila wadaagay wixii dhaxmaray oo dhan iyo sidii ku jiraan anaga ahaan waqtigaas waxay arrinta maadaama aanan horena u maqal waxayna noqotay arrin aad u xasaasiya arrin ay macquul tahay inay wax ka jiraan gabadhan waxayna la soo wadaagtay sawiradeedii sida halkan bay idinka muuqata sidoo kale waxayna la soo wadaagtay bangiga oo bangigii baan baadhnay run buu noqday waxyaabo fara badan oo inala soo wadaagtay oo dib u baadhnay ayaa xaqiiqo noqday sida emailkii oo kale bangiga ay muxuu haayeen accountkiisii inoo soo dirtay halkii warqada loogu dirayay
website-kii bangiga wixii oo dhan waan idin soo wadaa sheekada waxaa dhacday in gabadhii ay tiraahdo warnimayahow waxaad samaysaa warqad baan anaa kaa caawinaya wax kasta codsiga oo keliya ta adigu soo dirto warqadda sida loo qoraya systemkeedana anaa kuu soo diraya emailkaaga kugu soo diraya emailkaaga markaan kugu soo diro waxyaabaha ka dhiman baad kusoo buuxin doontaa accountka lacagta lagugu soo shubayaad ku qori doontaa qaab caynkaasa ninkani hore account muu lahayn big buu yidhi oo account buu soo furtay dahabshiil intuu tagay accountkii markuu soo furtay baa waxa dhacday inuu accountkii iyo warqadii ay usoo dirtay wixii ka dhinaay oo dhan magaciisii wax kasta uu ku buuxiyo dabadeedna waa uu u diray kadib waxaa dhacday in de waa halka loo dan leeyahay gabadhii waxay leedahay niyo waxaad samaysaa lacag $4,000 ayaa laynaga doonayaa $4,000 baad soo diraysaa waxaa lagu kala dabarayaa waxyaabaha caynkaas hadhow tole waxaynu ka jari doonaa kharashaadka 10kii aynu u astaynay in kharashaadka noqotaynu ka jari doonaa lacagtaas soo dir arrintu markay halkaa marayso in muddo aanay kasoo wareegtay dee informationkii kolba markaan xogta la isweydaarsanayay emailada la isku dirdirayo waxaa dhacaysa in gabadhu dee muddo yara qaadanaysaa oo mar waa la yar kala mashquulayaayo ma garanaysa aduu muddo markay kasoo wareegtay ayay arrintan usoo sheegtay in lacagtaa la doonayo markaasuu shaki iyo tuhun na yar galay kadibna waxaa dhacday in aniga maalin aan meel shaah ku wada cabaynay ay iga soo yeedhay uun warniyahow ninkan dictoorka ahi la sheegayo ee magaciisa ay noo sheegtay ee dictoorka bal aynu ku baadhno google-ka anagoo bartii fadhina wallaahi inaana been idin sheegayn google-kii baanu gelinay kadibna waxaa dhacday ilaahay baa i waafajinaye waxaa soo daatay waxaana information ah cajiib cajiib show waxani waaba tuuganimo la isku dhaco oo laga yaqaano wadamo dhan oo afrikaan oo walibana Nigeria oo kale xataa dad in loo dilay markaanu sii baadhneen website noo dhiibay xogtii khashifaadii leeyahay war waxaan iska ilaaliya dad baa lagu dhacaa caynka iyada sawiradii ay noo soo dirtay oo aad arkaysaan oo magaraysa google-ka yaala kuwii magaraysa xogtii oo dhan emailada noo soo dirayso sideedii u qoran waan yaabnay adu arrintii calaa kulli xaal waxba yaan hadal ku daalinay halkaas ay ku khashifmatay halkaasaan laga haray muddo bil ah markii ka soo wareegtay ayaa anigana account-kayga Twitter-ka sidii la mid ah lagala soo xiriiray sidii baa magaraysa laygula sheekaystay walibana tu degdegaysa ay tani aniga jacayl iyo waxa magaraysa igala laakiin arrinta markay fiican tahay arrin baan ka leeyahay emailkii baan isla tagnay qoraalkii ay soo qortay aan hore u haynay xogtiisa saali ajligeed waad wada arkaysaan waayo magaca telefishinkeeda markii hore waa ilaaway inuu magaciisa ahaa wiilkaan saaxiibada ahayn marka qoraalkii markay la soo wadaagtay daanu wiil xogtaan hayay uma bixin arrin haddaba taa ka weyn oo ka muhiimsan oo maanta iga qaylistiisay maadaama ay dhowr sano ka soo wareegtay waqtigii xilligaas information-kan laga wadaagay tu ka khatar badan oo walibana laga yaabo dee taa inaan dhibaato weyn kuma soo gaadhaynin laakiinse tan dhibaato caadiya ku soo gaadhaysa naftaaday saameyn ku yeelanaysaa asxaabtaaday saameyn ku yeelanaysaa waa arrin aad u khatar badan halkan u socdaana waa halkan waxaa dhacday in maalin dhaweytoole oo aad u fogeyn inama kale oo aanu asxaab nahay ayay arrintani walibana ku dhacday anaa idii soo xaqiijiyo idii huba waxaa dhacday waxaa lagala soo xiriirayaa barahaga bulshada sida Facebook oo kale ama Twitter-ka ama magaranaysaay Instagram-ka walibana Facebook marka lagala soo xiriiro horta waxaa lagu darsanayaa dhammaan asxaabtaada ku dhow ee commentiga ka bixiya reply-ga aad u gasho isku gashaan wada qosashaan wada kaftantaan ee aad kala jinsiga duwan tihiin tusaale ahaan haddii aad wiil tahay hablahaaga ayaa lagu darsanayaa aad wada kaftantaan ee halka saaxiib ku tihiin hablihii marka lagu darsado barihii bulshada iyagana ee la soo xidho ee saaxiib lala noqdo baa lagu haasaawinaya haasawahan waqti laguma luminayo xataa waxaa lagu furayaa video call
video call marka lagu furo baa waxaa dhacaysa waxaa lagu shidayaa dee anigu saan isiri iyada ma ahaan isiri qofkani filin ma garanaysaayay gabadh qaawan oo kale ayaa lagu shidayaa iyana iyadu kula sheekaysanaysaa laga dhigayaa codkuna xagga dambe ka baxaya waa sidaan anu isiri laakiin se haddii xataa iyada laftirkeedu ay samayso oo iyadu saa isku soo qaawiso oo muuqaalkii lagaa duubto dee iyagu waa dad gaala wax sumcadoodii iyo magaraysa sumcada ay marka hore lahaayeen iyo sharaf ay lahaayeen ma jirto oo meel dee kaga dhacaysa marka videogii dee waa live saa aad usoo gasho ee lagula sheekaysto ee magaraysa waxyaabaha qaawan magara ayaa lagaa duubaya shaashada ayaa laga duubaya mobilka waxaa welibana lagaa codsanaya inaad adiguna sidoo kale samayso xubnahaaga tusto oo caynkaas oo kale ayaa lagu oranayaa welibana waxaa shakilo ah in dad fara badan ay ku dhacayaan arrintaas oy tusayaan oy isqaawinayaan oy waxyaabaha sameynayaan muuqaalkii marka lagaa duubto waxba yaan hadal ku daalinay ayaa waxaa lagaa codsanayaa in numberkaaga oo kale aad bixiso si waxaa la doonayaa whatsappka lagala soo xidhiidha hadhow lambarkaagii dee wadiga hore ka dhiibay haddaad tira xataa lacag ii soo dir way iska yidhahdaan dhalinyartu inta badan waxaa lagu odhanaya waa yihiin lambarkaaga sheego kale oo lambarkii oo lagaa qaadanayaa waa gabadha ma garanaysaa kadibna waxaa la sameynayaa facebookii group chatting waxaa lagu soo darayaa 5 hablood ama 6 hablood ama 7 hablood ee groupkaasi ay marka hore iyagu des ay asxaab la noqdeen ay friends ku darsadeen ee adiga saaxiibada kula aha ku dhow iyo adigiiba meel isku keenayo group chatting loo sameeyo group chatting marka loo sameeyo waxaa lagu soo tuuray adiga sawirkaagi iyo ma garanaysaa qoraal la oranayo ninkaasaan video idin ka hayna wax kale oo lagu soo diray ma jirto waxa la doonayaa in adiga lagu rakaateeyo lacagna lagaaga qaato waxa lagu oranayaa niyow waxaan ka haynaa videogo anshaxa waxyaabaha waan ku ognahay inaad tahay qof muslina saali ajligeed waan ku caabeynaa asxaabtaada kugu caabeynaa familygaadan kugu caabeynaa haddaanad lacagtaas ka soo bixin whatsappka lagala soo xiriiraya messengerka haddaad ka xidhid halkii dee magaraysa whatsappkii baa la tegayaa qaab noocaasa lagugu rakaateynaya waana arrin aad iyo aad u saameyn leh adigana dhaawac kugu ah asxaabteena dhaawac ku ah familigeena dhaawac ku ah waxaan idiin sheegayaa saaxiibayaal inaad arrintaa ka taxadirtaan aad iska ilaalisaan waa arrin dhibaatadeeda leh cid kastana ay saameyn ku yeelan karto oo welibana ragga u badan waxaan idinka taxadirayaa inaad arrintaasi ku dhacdaan kana foojignaataan welibana inaad gaadhsiisaan cid kasta oo aad asxaab la tihiin oo aan maqal waxaan kaloo idin weydiinayaa saaxiibayaal haddii aad arrintan maqasheen inaad commentiga kusoo qortaan warkeeda aad haysaan cid ay ku dhacday haysaan aad idinku commentiga